deeqdan lacageed ee maanta loo qaybiyay qaar ka mid ah qoysaska ee saameysay fatahaadda webiga Shabeelle oo ka geystay magaalada Beledweyne gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba ayaa waxaa iska soo ururiyay oo soo dhibay jamciyadda aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ka soo qalin jabiyay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalka Suudaan waxaana goobta lagu qaybinaya qoysaska danyarta ku sugnaa isla markaana wax ka qaybiyay maayarka degmada Beledweyne Safiya Sheekh Xasan Cali Jimcaale deeqdan lacageed ayaa waxaa ka faa'iideystay oo loo qaybiyay in ka badan 160 qof oo isugu jira waayeelo iyo dadka lixaadkoodu dhantaalan yahay ama loo yaqaan naafada waxaana qof waliba lagu doonsiiyay lacag dhan $50 Mareykanka qaar ka mid ah dadkii danyarta ah ee ka faa'iideystay deeqdan lacageed iska soo ururiyeen jamciyadda aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ka soo qalin jabiyay dalka Suudaan oo ka damqaday dhibaatada soo food saartay walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa u mahad celiyay walaalaha soo dhibay deeqdan lacageed ayagoona sheegay in baahi weyn ay u qabeen helitaanka deeq noocan oo kala dadka walaalahaya oo sadaqada la soo gaartay isaaqo ma loo qeyd waxa waaye intii sadaqa bixiyo walkiis ma baro marka ma hada idin gaadhan leedahay insha Allah waa aad u mahadsantiin leeyahay waxa la siiyay $50 waa mahadsantiin ilaahay kor ha idin ka dhigo maxaa qaada magaciida Ibrahim Salaad nuur meeqa qaada $50 أنا نكلا أصلاً حق حوال بركادي مقعي وآذن بكر عبدي وحن بقول كان ولا لبقضي هو يلا راب عبد الله يو أحمد عبد الله وهذا ما سنتين قد إسرائيل شوية سيد واحد سن جاي وحنيسة دكتور آدم oo kamid ah shakhsiyaadka loo soo wakiishay inay gaarsiyaan lacagtani dadka mudan ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyay cadadka lacagtan cidda soo dhiibtay iyo waliba tirada dadka loo qaybiyay taba dhibaatada dhacday baa xadeeda waa la dareemi karaa oo aad u weyn tahay wax intaas waxa way ma geysan karto waxba ma geysan karto laakiin wixii tabarteena inaan u talagalnay inaan ka gaarsiino qof walba damiir leh qof walba damiir bini'aadanimo ku jiro qof walba damiir Soomaalinimo ku jiro qof walba damiir aqoon ay ku jirto dabcan wax uu ka gurmado waxa way uu ka geysto dareen uu ka geysto dabcan kaalmeynta waxa way waa baab weyn wixii kaga jirta diinta islaamka in dadka iskaalmeeyaan in qofkii dhibaataysan laga warhayo in qofkii waxa weeye dib uu soo gaaray qofka kale uu ka warhayo طبعا حديث وحاجر النبي عليه صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه walaalaha Soomaaliyeed ku soo waxbartay wadanka Suudaan iyagoo waxa weeye ka duulaayo xadiiskaas iyagoo ka duulaayo damiirkoodii bini'aadanimo waxay garteen in contribution qof walba jeebkiisa inuu ka aruuriyo qof walba inuu dhuuntiisa ka qabto contribution kaasi walaale isaga ka daran ay u gaaraan wadarta guud lacagta ay soo gaarsiiyeen walaalaha ku soo waxbartay wadanka Suudaan waxaan dhahnay waa lacag 8,000 kor u dhaafayso dadka qoysaska aan ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan waa qoysas 160 kor u dhaafay qaarkood qof walba wuxuu gudoomi doonaa oo aan farta ka saari doonaa lacag oo $50 insha Allah taala sidoo kale Safiya Sheekh Xasan Cali Jimcaale maayarka degmada Beledweyne ayaa u mahad celisay walaalaha soo dhibay deeqdan lacageed isla markaana sheegtay inay ku dayashay ay mudan yihiin dadkii ugu mudnaa in la caawina maanta loo qaybiyay deeqda lacageed iska soo ururiyeen aqoon-yahanada ka soo qalin jabiyay jaamacadaha kala duwan ee dalka Suudaan waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa walaalaheen ku soo wax barteen Suudaan Soomaali Suudaaniis oo garteen inay walaalahood maanta ay garab istaagaan dhibaatada gaartay gaar ahaan dadka baahida gaarka qabo dadka aan shaqaysan karin dadka agoonta haysto aadan iiga mahad celinayaa damiirka Soomaalinimada walaalnimada ilaa ajri xasanaatan iiga siiyo maanta halkan waxaan u nimaanay inaan gudoonsiino qof walba konton intihiin waan iiga gudoonay lacag cadadeeda iigu sheegeen 8,000 iyo jajab insha Allah haduu alla yiraahdo anagoo wada joogna aan wada qaybin doonaa ma aha wax aan guriga la tagaayo haduu alla yiraahdo jazaakumullahu khayran ilaahay ajri xasanaatan iiga wada siiyo badalkeedana wax ka fiican ilaahay iigu badalo
waxaa kaloo dhiman oo aan uga faa'iideysanayo hadduu alla yiraahdo aan bilaabi doonaa berito gabdhaha UK oo iska aruuriyeen lacag 16,660 hadduu alla yiraahdo oo aan siin doono dadka iyagana baahiyada gaarka qabo iyo dadka laga tira badan yahay sida Soomaalidu u dhaxaan Qaalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka Somali News Beledweyne